السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan ku wari doonaa silsilad taariikh oo aan kaga hadli doono rag taariikhda islaamka baaldahaba ka galay oo ay mudan tahay xilligan oo kale inaan ku baahino baraha bulshada. silsiladan waxaan ku soo qaadan doonaa suldaanul ulama sheekhi iibgeeyay waxa weeyaan suuqa geeyay rag madaxa oo ka talinaya dowladda mamlukiya sheekhi mujaahidka ahaa العز ابن عبد السلام oo loo aqoon jiray Ciizuddin ibn Abdul Aziz ibn Abd السلام. العز بن عبد السلام وحو نولا قرنigii lixaad rubiciisii damba. العز بن عبد السلام wuxuu la noolaa laba dowlad oo la kala dhihi jiray dowlad ayuubiya iyo dowlad mamlukiya. intaana sheekha qisadiisa u gudbin haddii aan taabano dowlad ayuubiya iyo dowlad mamlukiya xalku siduu ahaa. dowlad ayuubiya waxay ka soo bilaabataa ninkii la dhihi jiray Camaadudiin Sanki waagii Kirishtanka ay soo haweysteen diyaarul muslimiin inay ku soo duulaan. waxaa muslimiinta inta isku hagaajiyay ka hortagay ninkii la dhihi jiray Camaadudiin Sanki wuxuu ku riyo jiray in uu furanayo Baytul Maqdis saas la ajligeed riyadiisii asoon xaqiijinayo dhintay. waxaa qabtay xilkii wiilkiisii la dhihi jiray Nuuruddin Mahmuud oo loo yaqiinay Nuuruddin Sanki. Nuuruddin Sanki intuu xilka hayay wax badan ayuu muslimiinta u qabtay. sidoo kale naa'ib wuxuu ka dhigtay Salaaxudiin al-Ayyubi si uu uga taliyo dhulkan Masar. Salaaxudiin al-Ayyubi dhimashadii Nuuruddin Sanki kadib waxaa xilka la wareegay nin loo yaqaano Salaaxudiin al-Ayyubi oo taariikhdiisa aan ka wada dhareegsanahay Baytul Maqdisna furtay riyadii Camaadudiin Sanki xaqiijiyay. dhimashadii Salaaxudiin al-Ayyubi kadib waxaa xilka la wareegay wiilashii Salaaxudiin al-Ayyubi. weliba dowladdii Ayyubiya way daciiftay waxayna isku bedeshay duwaylaad aad u yaryar. halkaas ayuu marayaa dowladda Ayyubiya. waxaan ku soo qaadan doonaa sidoo kale qisada al-Ciz ibn Abd السلام dowlad Ayyubiya idoo xalku san yahay. haddaan u laabano dhalkan kale ee Masar dowlad mamlukiya ayaa ka talinayso Najmuddin Ayyub iyo malik la yiraahdo Sayfuddin ayaa waxay u kala taliyaan niman la yiraahdo al-Mamalik al-Bahriya iyo al-Mamalik al-Burjiya. marka labadaas ayaa meesha ka talinaysay. weliba waxa weeyaan xilligii al-Ciz ibn Abd السلام waxay ka soo gali doontaa taariikhda halka ayay ka bilaaban doontaa mawaaqifta yani sheekhu oo mara oo nacaan ku noqday. haddaan dib u laabano al-Ciz ibn Abd السلام noloshiisa qaybta hore faqri ayuu ku noolaa. yaraantiisa wuxuu ahaa faqiir weliba wuxuu ka soo jeeday reer faqri ayuu ka soo jeeday. saas la ajligeed yaraantiisii cilmi oo saas usii badan muusan barin. habeenada kamida asoo masaajidka jiifo ayuu riyooday 3 mar ayuu riyooday. weliba waxa weey janaaba gashayo 3 mar buu soo qubaystay. mid ugu dambeysay marka ayuu qabowgii habeenka jira daraadiis ayuu la suuxay. sheekha markuu soo toosay oo suuxdinta ka baaday waxa uu yeeray dhawaq dhahaya laba mid kala dooro in shaqo aad hesho iyo in cilmi aad barato. sheekhu wuxuu yiri waxaan dooranayaa cilmi ugu hanuuninayo shaqada. al-Ciz ibn Abd السلام wuxuu bilaabay in uu cilmigii barto asoo weyn weliba yaraantiisii ka soo gudbay. asoo weyn ayuu wuxuu bilaabay in uu cilmigii dalbo. al-Ciz ibn Abd السلام wuxuu gaaray heer loo dhiibay al-Jaami' al-Umawi fi Dimashq. sheekha mowqifka ugu horeeya halkaas ay ka bilaabatay. waxaa dhacday dowladdii oo tabarteereed oo Ayyubiya oo meesha ka talinaysay nin waxaa jooga Dimashq oo ka talinay leera al-Malik Salih Ismaaciil Najmuddin Ayyub ayaa wuxuu u soo dhaqaaqay dhankan Shaam Dimashq halkan ayuu soo aaday. al-Malik Salih Ismaaciil wuu baqada ninkii ka talinay Dimashq wuu baqday. wuxuu gaashaan burti la sameeyay niman la yiraahdo Faranjo oo gaala ahayo abiyaashii Salaaxudiin al-Ayyub dhulka ay ka bixiyeen oo waliba dhulka laga soo celiyay Baytul Maqdis laga xuriyay. raggii ayuu taxaaluf la sameeyay. raggii ayuu isku dayay inuu la gaashaan bursado. waliba wuxuu u ogolaaday in ay imaadaan Dimashq ay hub ka gataan kulana dagaalaan nimankan mamaalikiyada. marka waxaa dhacday sheekh al-Ciz ibn Abd السلام mowqifkaas ayuu muuqlay wuxuuna ka istaagay mowqif nin sheekha laga rabo. khadiib uu ahaa Jaami' al-Umawi ayuu khadiib ka ahaa jaamic ayuu ka istaagay. wuxuuna inkiray in gaalada gaashaan bursi la sameeysta ayuu ka hadlay khudbadii uga hadlay. weliba waxa weeyaan wuu ku inkiray amiirkii al-Malik Salih Ismaaciil wuu ku inkiray ducadiina wuu ka goostay oo looga ducay jiray Jaami' al-Umawi umarada. waxaa dhacday al-Malik Salih Ismaaciil xilliga wuxuu jiray Dimashq meel ka shisheeyay ayuu jiray. arintii ayuu maqlay wuu imaaday. al-Malik Salih Ismaaciil markuu Dimashq soo galay sheekha waa la xiray. al-Ciz ibn Abd السلام xabsiga ayaa la dhigay. kadib waan dheer kadib sheekha waa la soo daayay al-Ciz ibn Abd السلام muddo yar uu ku nagaaday Dimashq wuxuuna
u jihaystay inuu aado baytulmaqdis. halka ayuu u jihaystay. siyaasaddu waa iska badan tahayo siyaasaddu marba dhinacay kuu dhigtaaye arrinkaa waxaa maqlay nin la yidhaahdo almelik naasir daawuud ayaa maqlay arrinkii, jidkana u galay leexsadana shiiqa oo halkaa ku hayay. kii kaleo almelik saalex ismaaciil oo ka telinaya dimishqana shiiqii ayuu eriyey, wuuna daba bursaday. muddo dheer kadib waxaa dhacday in yacni shiiqii la waanwaaniyo almelik saalex ismaaciil oo dhaho war shiiqa helaysoo waanwaaniyo, weliba waxaad u sheegtaa, wuxuu u diray nin rasuul, wuxuu ku yidhi waxaawiye hadalka u jilci shiiqa, waxaa ku jira jegooyinkaagii dhan qadiibnimadaadi waa laguu celinaa, laakiin hal shardi sameey, waxaad macnaha samaysaa gacanta melik saalex ismaaciil shumi, waa hadduu diidana soo xiraa leehi. rasuulku u tegey alcis ibnu cabdisalaam, wuxuuna ku dhahay intii loo soo sheegay. alcis ibnu cabdisalaam marka wuxuu dhahay in aan shumiyo iska daayey, gacanteyda taa u ogolaama inuu shumiyo. waa ka halkaa markay marayso wiilkiisa ayaa weydiiyey arrintaa yacni kibir may kaa ahayd masa waa ka boqorada saan maxaa u geli jirtay oo hadalkaa u dhihi jirtay. wuxuu yidhi mar allaalo boqor aan arko iskibrinayo niyadda waxaan soo gashi jiru yidhi allah subxaana watacaala, boqorada waxay ay la mid noqon jireen bisad oo kale. alcis ibnu cabdisalaam markuu intaa yidhi xabsigaa la dhigay, waa loo sii intixaabay, xabsigaa lagu celiyey. habeenada ka mid a alcis ibnu cabdisalaam oo qur-aan ku dukanayo ayaa ninkii melik saalex ismaaciil oo la shirayo nimankii faranja, madaxdii faranja ayaa waxaa maqlay madaxdii faranja. markaas wuxuu u sheegayaa ninkaas aad maqlaysiin, sheekhaas aad maqlaysiin oo qur-aanka akhrinaya daraaddiin ayaan xabsi u dhigon u xiray, mucaarad oo igu mucaaraday yacni arrinka aan idiin ogolaaday, dhufaysyadii muslimiinta aan idin siiyey, hubka yacni waxaa weeye inaa idinka iibiyo aan idiin ogolaada. kufaanu isdhahay, laakiin nimankii waxay ku jawaabeen lukaana qisiisa, hadduu ahaan lahay nin qisiisa oo anaga naga tirsano, ayaga qisiista waxay u yaqaaniin dadka culummadu u ah kirishtanka. marka saas laadiga hadduu qisiis ahaa lahay waxay dhaheen intaan lugaha u dhaqno ayaan biyahaan ugu dhaqno cabi lahayn. marka waa yacni way u bedeleen oo saa yeesha culummada saa yeesha anaga ma yeeli lahayn ayay dhaheen. marka muddo dheer kadib ba sheekhu meesha ku xirnayn waxaa imaaday mamaalikadii albaxriya ninkii u talinayay najmudiin ayuub ayaa soo weeraray, nimankii faranjana meesha lagu dhameeyey. laakiin sida alxamdulilah sheekhi wuu badbaaday. sheekhi marka wuxuu u jihaystay diyaarun masra, inuu dhanka misr iska aado. masr ayuu galay, halkaa ayuu culumtii wixii kasii waday, diintii inuu dadka bara iyo waxaa weyaan wacdigii halkaasuu kasii waday. sheekha marka waxaa loo magacaabay jaamici loo yaqiinay jaamic camar ibnu caas ayaa khadiib ayaa loo magacaabay. sidoo kale waxaa loo magacaabay qaadi alqudaat, sheekha waxaa laga dhigay qaadi alqudaat. waxaa dhacday marka mowqifka hore uu usoo maray ka adag ayaa sheekha soo wajahday. ninkan najmudiin ayuubi nin damac badan uu ahaa, haddana ku adag xilkiisa. waxaa dhacday in uu aado nimankan atraakta iyo meelaha uu ka keensado addoomo, kadibna addoommadii uu tababarto, xilalna uu u dhiibo ilaa ay gaareen jegadii amiirnimada ay dhammaantood ay heleen nimanka addoommada. sheekha ayaa ku baraarugay mowqifka, yacni in dadka xilalka haya badankood xataa naa'ibka najmudiin ayuubi ninka naa'ibka u ah wuxuu ahaa nin addoona. sheekhii alcis ibnu arrintii maqla wuxuu fatwooda marka nin addoona in uusan xil qaba karin ilaa nin xura mooya xil qaba karo. wax arrin saas uu fatwooday. waxaa dhacda marka sheekha in lala colaytamo ayaa dhacday. arrintii markuu fatwooday sheekh waa lala colaytamay, in la xiro in la dilo la isku dayay, laakiin sheekhu ku adkaystay. arrintii markay gaartana in lagu dhaqmi waaye wuxuu yidhi bes waa aniga meel noocaana ma sii joogayo. labadiisii dameeruu soo rartay, wuxuuna yidhi qaahiro waan iskaga tegayaa, dhulkana iska aadaya. markuu baxay qaahire ka baxay, laba dameeruu lahaa, dameerna wuxuu ku rartay reerkiisii iyo ahlkiisii ku raray, dameerna asaa fuulay, kutubtiisii wixiisuu ku qaatay. markii waxaa dhacday qaahiro wax yar markuu ka baxay, shacabkii ku noolaa qaahiro dhan ayaa sheekhii daba kacay oo weliba waxaa weeye taageersan almelik najmudiin ayuub. markaa waagaasna ku bariyey, weliba waxaa lagula teliyay inuu boqortooyadiisa ilaalsado, sheekhan uu soo barbariyo. sheekhii waa laga daba tegey, waa la barbariyey. sheekhi markaas shardigu ku xiray, hal arrinaan u laabo kara uu yidhi, qaahiro ugu laabo karaa in umarada dhan inta waxaa weeye addoommadaas ay yihiin, anigu laaban maaye, umaradaas dhammaan suuqa halagii hala iibi, intaasaan ku laabo kara. arrintii waa ku cuslaatay. akhiiran waa lagu waafaqay shardigiisii. sheekhi wuxuu usoo laabtay qaahira, wuxuuna sameeyey arrintii uu ku adkaystay
umaradii dhan wuxuu geeyey suuqa mid mid ayuu u iibiyey umaradii dhan suuqu inta keeno mid mid u iibiyey wuxuuna sameynayay umarada midba mid ayuu suuqa keenayay lacagtuu ku qaaliyeynayay markii lacagta ay caamadu gada waayaan dadka shacabka ay gada waayaan najmudiin ayuub ayaa gadayay uuna xoreynayay raggii lacag badana ka soo xarortay baytulmaalka waxaa lagu hagaajiyey ciidankii muslimiinta xataa tataarka lagu jabiyey waxaa kamid ah arrintaana kamid ah shiiqa arrintii waqcadaas mowqifadaas uu ku adkaystay umaradii oo addoommada ay dhammaan uu iibiyey lacagtooda baytulmaalka uu ku shubay wax yar mowqifkii hore kamaysan soo wareegan waxaa imaada mowqif kale ninkii wasiirka u ahaa najmudiin ayuub ayaa wuxuu ka dhistay masaajidda qaahiro kamid ayuu wuxuu ka dul dhistay meel heesaha lagu dhageysto shiiqa arrintii waa ka carooday uuna maqlay wuxuuna u istaagay inuu munkarkaas suuliyo wuxuu ka cabsada marka maadaama qaadil qudaad uu yahay ciidanka u adeega hadduu soo dumiya dhaha inay cabsadaan ilmihiisii iyo xertiisa watay dhulka ayuu dhigay shiiqii marka arrintii sidoo kale waa lagu qabsaday waxa weeyaan hubkii uu haysto unba ugu bootiyey wuxuu yidhi bis waa aniga waa ka tegaa meel noocaana shiiqii wuxuu iska cisilay qaadil qudaad kadibna wasiirka wuxuu ka dhigay nin aan la aqbalin cadaaladiisa wasiirka wuxuu isdhahay warkaas war waxtiraam ma aha laakiin markuu dimashq warqad u diro waa la aqbali waay caalamul islaam dhan ay gaartay arrintii kadib waxay noqotay markii sheekh alciis ibn cabdisalaam in la soo raaliyo la soo toogto digadiisii loo soo celiya marka alciis ibn cabdisalaam wadaadkaas uu ahaa taariikhda islaamka rag noocaasa ka buuxa intii muuqaal noocaan oo kale ku kulmeen waxaa idinka tegaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu